بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودياشا شرفتي naga mudan meel walbo aad naga daawanaysaan waa mar kale barnaamijkeena toddobaadkii dunida waqtiyadan oo kale aad ka daawataan muuqaal baahiyaha STN xaruntiisa dhexe magaalada Nairobi meel walbo naga daawanaysaan subax wanaagsan ayaan idin leenahay barnaamijkeena toddobaadkii dunida ayaan inta badan waxaan ku soo qaadanaa waxyaabihii ugu waaweynaa ee toddobaadkii la soo dhaafay caalamka iyo dalkaba ka dhacay barnaamijka waxaa soo saaray isla markaasina halkan idinkaga soo jeedin doona anigoo ah maxamed ciise waxaanu maanta ku eegi doonaa farbixinta qaxootiga ee ka socotay gobolka waqooyi bari ee dalkani Kenya toddobaadkii iyo bilihii aynu soo dhaafnay iyo xaaladda ay hadda marayso iyadoo loo gudbiyey magaalada Ijara halkaasi oo farbixin ay ka socoto sidoo kale barnaamijka waxaan ku soo qaadan doonaa oo kale ama aan ku eegi doonaa waxaa dhacay daadad waaweyn oo dalkani Kenya ka dhacay roobabkii toddobaadyadii la soo dhaafay da'ayay ayaa dhibaatooyin badan u geystay markaasi bulsho kala duwan haddaba caawintii dowladda ay u fidisay iyo siyaasiyiinta kale ee goobaha kala duwan ee dalka laga soo doorto iyo sida ay markaasi u caawiyeen ayaanu barnaamijkeena ku eegeynaa iyo qodobadii kale iyo waxyaabihii kale ee toddobaadkii la soo dhaafay dhacay barnaamijka waxaa igula weheliyo cabdimajiid cumar oo ah wiil saxafi ah isla markaasina madax ka ah shirkadda warbaahinta ee DNA magaalada Gaarisa ka jirta DTN meel walbo aad naga daawanaysaan mar kale ayaan subax wanaagsan in leenahay qodobkeena ugu horeeya ee aan ku daafuranayno ayaa waxa uu yahay waxaa gobolka waqooyi bari ee dalkani Kenya ka socday farbixin dadka qaxootiga dadka deegaanka ee qaxootiga galay ee farahooda qaxootiga galay ayaa bishii la soo dhaafay farahaasi laga saarayay sidoo kale dadka qaxootiga ah ee qaatay sharciga dalkani Kenya ayaa ayaguna waxa laga saarayay sharciga si qof walba sharciga uu lahaa uu qaato haddaba farbixintaasi ayaa waxay ka socotay deegaankaasi countiga Garissa iyadoo ugu dambeyn degmada Ijara loo gudbiyey toddobaadkii aynu soo dhaafnay haddaba xaalka farbixintaasi iyo siday u socoto ayaa marka hore waxaa ka hadlayo oday nabadoon oo ka mid ah odayaasha ugu waaweyn degmada Ijara raxiim anigu waxaan ahay mursal maxamuud qorsheel duqa magaalada Masalani chairman usalaama kuansa fursadan ilaahay na siiyay ee dawladda Kenya na siisay waxaan ku mahadinaynaa saddex madaxweyne hore aan ka barinay laba madaxweyne hore aan ka barinay kama aanan helin madaxweynaha ma noo ogolaaday fursadan aan gacmaha iskaaga bixinayno madaxweynahaas ayaan mahad u celinayaa midda kale maheshimoa Safiya aan mahad u celinayaa oo noo bariday dawladda Kenya oo ilaahay u diidin noogu kordhisay 14 beri waxaan mahad u celinayaa diisigii Masalani doobadan soo dhex jiiray ilaa xalay dhex soo gale subaxna u barseeyay dadweynihii Masalani waxa kale oo mahad u celinahay shaqaalahan meeshan joogo oo ilaahay u diidin si fiican u shaqeynaayo marka si fiican ayaa loo u shaqeynayna shaqadii si fiican ay noogu socotaa rooba ilaahayna siiyay naxariistiisaan ku jirnaa waan qaboobanahay dhib ma jiro alxamdulillah dhibaatada doorasho ku jirtana inuu ilaahay naga sii qaado ayaan ka rajaynaynaa ilaahay insha Allah wagaag iminkana waxaan u gudaynaa bal arrimahaasi inaan faaqidno iyo sida ay farbixintaasi ahayd iyo xaalka inta halka uu marayo cabdimajiid cumar ayaa barnaamijka lagu heliyo oo dhowr su'aal aan ku weydiin doono arrintaasi ku saabsan cabdimajiid ku soo dhawow STN marka hore aad baa mahadsan tahay maxamed habka waxaan diigu martaqaaday barnaamijkan iyo guud ahaan TV-ga STN waana ku dhawahay bal su-aasha ugu horeysa aan ku weydiinaya waxay tahay warbixin in aad inaga siiso sida ay u socotay farbixintaas ee degmada Ijara farbixinta maxamed horta waxay u socotay markii hore inaad ka warqabtaan u malaynayaa waxaa laga bilaabay magaalada Gaarisa gudaheeda horta laga bilaabay maadaama ismaamulka Gaarisa uu yahay ismaamulka martigeliya qaxootiga tirada la eg dabcan ahna qaxootiga ugu tirada badan caalamka sida xogta qaar sheegayaan
marka dadkii aad bay u tiro bateen huduma center meelaha maaragtay ay diiwaangelinayay yaa dadkii waxay noqotay marka in xarumaha kale ama ismaamul maxay ahayd deegaanadii kale inay kasoo safraan gaarisa imaadaan marka danta waxay qasabtay in maaragtay deegaano qaar la geeyo sida hadda deegaanka Ijara oo kaleeto Mheshimiwa Safia xildhibaanada laga soo doortay deegaanka Ijara waxay u fududeysay dadka deegaankaasi in maaragtay ay ka qayb galaan ay helaan fursadda ah in deegaankooda lagu geeyo farbixintaas iyadoo ka wada qayb qaadanayaan chiefafkii iyo maaragtay odayaashii meesha joogay marka dadkii in macnaha wixii deegaanka u dhashay inay halkaas tagaan oo maaragtay meeshaas iska soo farbixiyaan marka arintana aad iyo aad si fiican bay u socotay kulli hadda sida maqlaynay sodaankii hadlaayay nabadoonkii hadda hadlaayay wuxuu u mahadcelinayeen dadka badi maaragtay madaxweynaha iyo maaragtay xildhibaanada oo iyaduna door weyn ka ciyaartay run ahaantii inay u geyso deegaanka marka waxayna socotay muddo 3 cisho marka sidoo hadlay waa maqlayna wuxuu sheegay in 14 beri loogu daray marka maxaa keenay 14 beri in lagu daro saan ku sheegay waa ka hadda ku leeyahay dadka markii Gaarisa la yiraahdo way qaadi weysay oo maaragtay waxay danta kaliftay in deegaanada la geeyo ma fahamtay marka waxay danta kaliftay marka in deegaanada la geeyo oo maaragtay loo geeyo dadweynihii si maaragtay ayaga uga faa'iideystaan marka dadkii aa bateen tiradii aa badatay dadkii aa farabateen marka waqtigiina maadaama 3 cisho uu ahaa 3 cishona sideeda way waa wax iska yar wax la xisaabiyaa way yar sooma marka adii markii la fiiriyay oo 3 cisho gabagaba ay ahayd aniga safar shaqaan meesha ku joogay anagoo meesha joogaa marka lagu soo daray sidaasaan xogta ku helay inta badan marka waxay u soo dooday xildhibaanada oo maaragtay door fiican iyadana xataa ka ciyaartay qaybta labaad in maaragtay dadkii 14 beri muddo ah lagu daro oo loo dheereeyo marka waxa loo sameeyay muddo kordhin si dadka maaragtay ay uga faa'iideystaan marka ilaa iminka waxaan filayaa inay socoto marka ka waran dadka waxay joogeen deegaano kala duwan inkastoo laga yaabo dadkii inay deegaanka Ijara ka soo jeedaan haddana dadkii Ijara magaalada inay wada joogeen laga yaabo dad safar aado dadka qaarkood xoolo dhaqato way waa ogtahay mararka qaarkood waxay xuduudka ka gudbaan Soomaaliya inay aadaan laga yaabo mararka qaarkood safar Nairobi magaalooyin kale marka dadkaas dhammaan ma la wargeliyay oo ma ogaayeen arintan inay dhacayso dad badan oo ka qayb qaatana ma jiraan dabcan waa batan kaliftay oo qasabtay in maaragtay muddada la kordhiyo sababtoo dadkii bateen aan ku leeyahay Soomaa marka dadka nin walba meeshuu jiray oo maaragtay farqo xotin ku jiray uu ka imaaday midkii Nairobi jiray Nairobi ka imaaday midkii maaragtay jiray dhinaca gadiga kala jiray uu imaaday isagana marka dadkii meesha joogay intii ku sii jirtay way imaatay taasaaba kaliftay in ay ciriiri gasho maalmihii si awgeed loo kordhiyay marka dad aad iyo aad u tiro badan baa dabcan ka qayb qaateen ilaa iyo hadda aan kula hadlayo waxa xogta aan ku hayaa xog rasmi ah in maaragtay dad qaar ay wali dhiman yihiin codsiyo qaarna ay jiraan in muddada wali la sii kordhin karo maaragtay ay dhici karto marka laakiin hadda uu soo dhameystirmay wajigii koowaad dad badan oo reer Kenya oo North Eastern degan ama gobolka Waqooyi Bari ku noolaa qaxootiga galeen oo Garissa County ay ugu badan tahay Wajeer County waa jira sidoo kale marka degmooyin badan ay Garissa ka kooban tahay sida la socono degmada Ijara mooye degmo kale oo la geeyay ma jiraan oo saas oo kale faraha loo bixinay dabcan waxaan xaqiiq u haynin in deegaano kale ay jireen laakiin se waxaan ku hubaa oo kaliya xildhibaanka kaliya aan xogtiisa hayay inuu meeshiisa gaarsiiyay inay tahay xildhibaan Safia marka dabcan inta kale xaqiiq uma hay oo ma hubo
xog dheeraadna kama hayn. shaqadii la qabanayo waxay ahayd faraha qaxootiga in dadka laga bixiyo, isla markaas dadka qaxootiga oo faraha oo galeen ayagana oo reer Kenya noqdeen oo sharci Kenya qaateen ayagana sharciga laga bixiyo. Marka inkastoo dad badan la helay oo faraha qaxootiga laga bixiyo, dad kale ma jiraan oo qaxooti ahaa oo dalbaday ayagana faraha Kenya laga bixiyo intaa ka warqabto. dabcan dad qaxooti ahaa oo aan Kenyaan ahayn oo Kenyaan ahayn oo sharciga Kenya qaateen maya ma jirto. inta hadda aniga aan ka warqabo ani ahaan ma jirto. warbixin caynkaana imaysan soo gaarin, laakiin se warbixinta ahaya waxay tahay in dowladda ay dhahday dadkii maaragtay qaxooti ahaa horaan oo aan Kenyaat ahayn oo marka kibaandha qaatay far qaxootina ku jiro inay soo celin karaan aqoonsigii Kenyaatiga, inay soo celin karaan hadday doonaan. marka dadkan ka warna hadda sharci shaqadii sidii la rabay ma loo qabtay oo dadka ma soo dhaweeyeen? run ahaantii dadka aad iyo aad bay usoo dhaweeyeen. koley hadee shaqo meel laga bilaabana dhaliil way iska jirtaa. aniga markaan ku leeyahay waxaan warbixin toosa ka haya deegaankaas, waan ku sugnaa oo howlo shaqa u joogay. marka dadka deegaanka maraan wareystay, dad qaar waxay ka sheeganayeen habka ay u socotay maaragtay. marka inta badan wareysyada aan la yeelanayo waxay ahayd 14 beri intaan lagu darin ka hor. marka dadka cabashada ugu badan ay muujinayeen waxay ahayd muddo kordhinta. markii la kordhiyay kadibna dadka badi inta badan aad bay ugu qanacsanayeen, aad bayna ugu faraxsanayeen. Cabdimajid Cumar, aad iyo aad ayaan kugu mahadcelinayaa sida wanaagsan ee warbixintaasi ay noogu sheegtay iyo sida dadka qaxootiga ku jira, dadka Kenyaanka ee faraha qaxootiga galay faraha looga saaray. aad ayaan kaaga mahadcelinayaa. waa hagaag daawadayaal, barnaamijkeena toddobaadkii dunida ayaan ku jirnaa. sidaan hore idinkugu sheegnaba waxyaabahan ka hadlayna waxaa kamid ah roobabka dhibaatooyinka ay geysteen dalkani Kenya, khaasatan countiga Garissa iyo degmada Ijara, halkaasi oo deeq la gaarsiiyey. deeqdaasi sida loo gaarsiiyey dhibaatooyinka halkaasi ka dhacay ayaanu ku eegaynaa. sidaan hore idinku sheego barnaamijka waxaa igu weheliya Cabdimajid Cumar oo saxafi madax banaan ah oo su-aalo dhowr aan ku weydiin doono. Cabdimajid, mar kale bal inooga waran deeqaha, bal intaadan ka waramin ka hor dhibaatooyinka ka dhacay ama markay fatahaadaha dhaceen dhibaatooyinka gaarsiisteen. maxamedow, horta fatahaado way dhaceen. sidaa ognahayba bishii ugu dambeysay waxay ahayd maaragtay bil roobaad oo maaragtay nimco badan baa dalka ka deeday. marka guud ahaan geeskan Afrika oo dhan roobabkaas waxay wateen fatahaado. fatahaadaha goobaha ay ku dhufteen waxaa ka mid ah ismaamulka Garissa oo kaleeto saameyn weyn bay ku yeelatay. ismaamulka kale ee deriska la ah Tana River sidoo kaleeto, maadaama uuna maro maaragtay webiga Tana River inta badan asaga soo maaragtay soo jebinayay. marka Ijara ahaan markaan dhahno waxaa dhacday maaragtay in dadkii ay kala xirmaan, go'doon ay galaan, maadaama uu uga imaanayay wax walba oo dhaqaala ama maaragtay raashin ha ahaato, qudaar ha ahaato, inay uga imaanaysa dhanka Mombasa iyo maaragtay Lamu oo kaleeto, Tana River, Garissa. marka wadooyinkii baa dadka maaragtay yaa xirmeen. marka dadkii go'doon bay galeen, gaaja timid, xanuun baa yimid maaragtay. aad iyo aad baa run ahaantii loogu rafaaday. wadooyinkiina dee waa iska mara maaragtay, waa wado iska cara ah, inta badan laami ma aha. marka in go'doon la galay gashay. marka maadaama go'doon la galay, ma jireen daadadkii iyo roobabkii daayay guryo dumay ama dad geeri ama inay dhacday? run ahaantii dhimasho ma jirin, laakiinse dhaawacyooyin maaragtay iyo xanuuno way jireen. kaneeca aad u dhalatay inta badan zaid. marka laakiinse dhimasho lama sheegin. xanuun iyo maaragtay malaariyadu aad meesha uga dilaacday. intaas baa maaragtay warbixin ah. guryo dume ma jiraan? guryo dabcan way jiraan, guryo dumeyn, laakiinse caawimaad baa dadka qaar gaartay. inta badan guryaha waxaa ka darnayd gaajada dadka maaragtay meesha ku heshay oo go'doonka ku heshay. xoolaha ka waran, dhinaca xoolaha hadda ka waran. dhinaca xoolaha badi dadka way
maaragtay abaar baa horaan soo jirtay marka hadda roobka maadaama uu da'ay xoolaha gudaha maaragtay deegaan gudihiisa maysan joogin laakiin meelaha kale ay jireen way ku nabad qabeen wax oo hadda xoola dad la leeyahay xoola uu ka laayay lama soo sheegin intaan hadda xog tahay deeqda ka waran sida loo gaarsiiyey niyow deeqda waxaa loo gaarsiiyey waxaa ka qayb qaadatay horta haddii aan kastoo anigoona u ayxanayn maadaama aan ku leeyahay ismaamulka Garissa iyo Tana River isku sibay maaragtay u fatahaadaha u saameeyeen ismaamulka Garissa deegaanka Ijara wuxuu ka mid yahay 6 deegaan baarlamaaneed ee hoos yimaada ismaamulka Garissa magaratay marka xildhibaan Sofia waxay maaragtay gaarsiisay dadkeeda deeq iyadoo la kaashanaysa dawladda county-ga iyo midda national-ka iyadoo ay hogaaminaysay dhanka kale waxaa maaragtay door libaax leh ka qaatay kana ciyaaray ciidamada Air Force ciidamada cirka ayaa iyaguna doorkooda ka qaatay marka run ahaantii diyaaradooda ayaaba la isticmaalaya xitaa sawiraanta kole inaa ku arkaysaan filaya waxaa ka qayb qaatayna waxaa ka mid ahaa iyada oo hogaaminaysay wafdigaas ama dadkaas deeqda bixinayay oo nationalka ka socotay ciidamada Air Force ciidamada cirka maaragtay dawladda county-ga uu hogaaminayay ku-xigeenka barasabka mudane Cabdi Dhaqane waxaa kaloo socotay hay'adda Lanqayrta Cas iyadana socotay marka xildhibaan Sofia dadku waxay gaarsiiyeen iyadoo dadka horkacayso raashin sida hadda ujeedaan raashin bay gaarsiisay maadaama meesha kanaaca ay ka dilaacdayna dadkii waxay gaarsiisay oo u qaybisay shandarooyinka kanaacada la iskaga celiyo meelaha ay gaartayna waxaa ka mid ahaa